dugsiyada al-irshaad school. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin. waa macalin axmed cabdiraxmaan maxamuud axmed heelo oo idii dhigi doonaa waxbarashadiina online-ka, gaar ahaan maadada fasalka shanaad ee Soomaaliga. casharkiina maanta waa cutubka saddexaad, casharkiisa labaad. heestii aan weye albaabka ii xidha ayuu tiriyey bogga ku taala 118 bogga 118. waxaa tiriyey maasadan allaha u naxariistee maxamed ismaaciil baasarce oo barkad casri loo yaqaanay. waxa uu ahaa hal abuur miljiro ah, qaybo noloshiisa ka mid ahna ku qaatay qurbaha iyo waddanka dibaddiisa. waxa uu curiyey suugaan badan oo uu ku diidanaa gumaystihii ingiriiska ee Somaliland haystay. sanadkii 1961 ayuu isaga oo 23 jir ah ku geeriyooday allaha u naxariistay Hargeysa. waaye ujeedada ku kaliftay heestan inuu tiriyo abwaanku waxa way ahay tahay kow, sanadkii 1958 waxaa yimid Somaliland nin ka socday boqortooyada midowda Britaniya. ninkan waxa uu ahaa boqorada adeerkeed. kadibna waxaa lagu yiri barkad casow u hees amiirka, weliba hees ammaan ah u tiri. qodobka labaad ku kaliftay heestan inuu tiri waxa weeye barkad cas isaga oo ka gubanaya gumaysiga iyo nabcaanshaha uu qabo ingiriisku, isla markaana diidan soo dhaweynta amiirka reer Britaniya, ayaa sababtay inuu tiriyo heestan calaacalka ah oo kaga hadlayo waayaha uu qabo iyo sida uu ingiriisku Somaliland ugu soo duulay iyo sida uu aqoon ahaan iyo ilbaxnimo ahaanba uu ingiriisku u curyaamiyey dadka Soomaaliyeed ee dulka jooga. wuxuu yidhi heestiisa oo bilaabaya abwaanku: awowgay ninkii indhaha tiray, ninkii aabbahay addoonsaday, ninkii anigana i iibsaday, ninkii ifka igu addoon tiray, iidaan li'ibaa ishaa ibardee, haddaan ogahoon ka aarsan karayn, haddaana adimada ku oolin karayn, ninkaa araggiisa uurkaan ka nabacee anoo yaalbaabka ii xidha. waxaynu soo qaadanaa eryadan aadka u macaan ee heesta ka mid ah, bal sharaxooda iyo macnahooda sugaan ahaaneed. waxaa la yidhi 1884 buu ingiriisku Somaliland qabsaday arday. waxaa la yidhi muddo 76 sannadood ah ayuu waddankiina ka talinayay ingiriis, oo calanka ingiriisku Hargeysa ka dhex taagnaa, oo uu isagoo maxkamada haystay, ciidamada haystay, oo uu ina kala xukumayay, ina kala xidhxidhayay, uu loo talinayay inaga. oo la soo dacweeyo ingiriiska caddaanka baa xidhayay, kala xidhayana ingiriiska caddaanka abaa jeel geynay. halka iminka dadkeenu dee inagu aan ismaamulin dowlad madax bannaan hayna wax qabsanayno, askarigu uu yahay nin muwaadin, madaxweynuhu nin muwaadin yahay. markaas dalka waxaa ka talinaya caddaan. wuxuu yidhi isagoo tilmaamaya sida uu ingiriisku u naafeeyey gumaysigiina aqoon ahaan iyo maxaan ku dhahdaayay iyo bilaamid ahaanba. wuxuu yidhi awowgay ninkii indhaha tiray, ninkii awowgay aqoon darrada ku indha tiray ee waxu bari waayay buu yidhi, ninkii aabbahay addoonsaday, ninkii aabbahay addoonsaday ee intuu iibsaday geeyey wadamada kale si uu ugu dagaalamo ingiriiska. waxaa la yidhi baa la yidhi dadka odayaashii berigaa joogay weli waa loo leeyay. dadka inta la ururiyo ayaa la raafayay, markaasaa ay barma ka soo dagaalamayeen iyo Hiroshima. markaasay soo noqonayeen iyagoo dagaalo ingiriisa soo galay, haddana oo aanay waxba uga 15 ahayn, iyagoo tegayay waddan aanay garanayn weligoodna aanay arag, ugoodna aan lahayn. wuxuu yidhi ninkii aabbahay addoonsaday, ninkii anigana iibsaday, anigoo yar buu iibsaday buu yidhi, ninkii ifka igu addoon tiray, ninkii aniga xoolahaydii iyo hantigaygii qaatay, khayraadka waddankayga iibsaday, macdanta la soo baxay,
waxaa la yidhi ingiriiska wuu qaybsaday hadda gumaysiga afrika qaybsaday markaa qayb buu u helay baa la yidhi ingiriisku markaa wuxuu iifkaygu adduunta oo aniga ayuu waddankayga qabsaday buu u jeedaa abwaanku iidaan liibaa isha ay baday itaaldarraa ay baday buu yidhi inaan inta leegaado anigu maanta haddaan ogahoon ka carsan karayn haddaanan ogeyn ninkaas aniga iibsaday aabbaha inaa addoonsaday haddaanan ogeyn oo aanan ka carsan karaynin maanta oo aanan dili karayn buu yidhi haddaan adimada ku oolin karayn haddana cagaha kaga joojin karaynin xumaanta uu ku hayo waddankayga iyo gumaysiga uu waddankayga gumaysanayo haddana cagaha kaga joojin karaynin ninkaa araggiisa uurka nebcahaye ninkaa araggiisa waan ka murugoonayayo waan ka calol xumoonayaa maadaama aan xasuusanayo ii gaystay buuli anooya albaabka ii xidha aan ciil iyo iska ooyayey cidiyay arkin xasnimadayda ee albaabka ii xidha oo meel qarsoon ku muhim dhamaystay wuxuu yidhi isagoo England jooga buu ii dilo isagoo England iska jooga ayuu ii soo dilay ushuu soo fidiyaa iimayso ushuu soo fidiyay baa i dhaawac i waxyeelaysay ushuu waa dadkan caddaanka yimi halkan marka wuxuu ii soo diray rag gumaysta markaa taas baa ah ushuu soo fidiyaa iimayso xukunkuu soo fidiyay baa iimaysa aniga waa taa aranigii oo fatirtee waa taa nabaradii oo faha nabar wixiiga yeeshay oo fii wixiiga yeeshay asaagliibaa isha ay badee wuxuu yidhi taaldarraa caynkaa iga dhigtaye ama hiilaanbaa caynkaa iga dhigtaye oo cid ii hiilisa oo afrikaana baan haysanne haddaanan ogahoonan ka aarsan karayn haddaanan ninkaa cadaawadiisa ogayn oo aanan ka aarsan karayn aanu ciidan iyo hub lahayn anigu haddaanan adimada ku oolin karayn haddaanan lugaha ku joojin karaynin dhaawacuu ii geystay isagu ninkaa araggiisa uurkan ka nebcee ninkaa araggiisa waan xasuusanayaa waan ka murugoonayaa waan necebahaye anooya albaabka ii xidha albaabka aan iska ooyan caasimadaydi wuxuu yidhi arladii ka samro adduun ma haye anigu adduun ma haysto khayraadkii iyo waddankiiba ingiriis baa haysta haddii la ilaashay afkaygii haddii waxaan odhanayo la qabanayo lay xidhayo buu yidhi marka la yidhaahdo wuu ku caayaya ingiriisow haddaana ikhtiyaar aqoontay hadlaynin haddaana aqoontay ikhtiyaarkayga hadlaynin haddaana erey qura shirkaa odhanaynin haddaanan shir qura oo ingiriis leeyahay wax ka odhan karaynin ninkaa araggiisa uurkan ka nebcee araggiisa ninkaa uurkan ka nebcee anooya albaabka ii xidha bartaasoo ardaya casharkii noogu joogaa waa inooyi casharkan casharka xiga haddii ilaahay yidhaahdo heestu may dhammaanna way sii socotaa qaybtaa aynu soo sheegnay wuxuu kaga hadlayaa sida dhaawac uu ugu geystay gumaysigu isagoo lunsaday khayraadkii dadka iyo dalka isagoo dadka afrikaanka ah iibsanayay gaar ahaan soomaalida isagoo geynayay wadamo ingiriis ah si ay ugu dagaalamaan isagoo igu hiliyaan isagoo qaar gaalaysiinayay oo malcaamado iyo wax intuu yidhaahdo waan ku darayaa la barayay diinta kiristaanka kadibna ay kirista noqonayeen waxyaabahaas oo isbiirsaday buu kaga warramaya abwaanku iyo sida uu aanu itaal ugu haynin amase dad arkaya oo caqli leh uu iska dhiciya aanu u haysanin adiyaad badmahadsantiin sidii fiicnayd ee xiisada uga qayb qaadateen waqtigu haydii fiicnaado waayu haydii samaado waa axmed heelo idii leh inta ka horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala dugsiyada al irshaad school